waxa ay ahayd waqti dambe oo habeenimo ah. Askarta ayaa la soo ogeysiiyey oo ay guri ka soo cawdeen jaarkii ku ag dhowaa. Talayaabka ku noqotay askartuna waxa ay ahayd gurigaas in bari hore laga guuray oo aanay cidi deganayn. Askartii ayaa u kuurgashay sida ugu dhaqsiyaha badnayd, laakiin waxa ay kala kulmeen ayaa askarta laftigoodii aad ugu naxdin geliyey oo u la yaab geliyey. Muuqaalkii halkaasi laga soo duubay iyo muuqaalo kale aynu ku daawan doonaa maanta muuqaalkan. sida caadiga ah askartu waxay dabagalaan dembiyada iyo dadka ay ka shakiyaan, laakiin arrintaasi waxaaba ay ka duwan tahay. waa arrin qarsoon oo si cabsi leh u muuqata. kadib markii loogu wacay ama loogu yeedhay inay baadhis ka sameeyaan ama ay ka howlgalaan gurikaas oo aanay cidna deganayn, waqti habeenimo ahna ay ka dhacayaan waxyaabo aad u la yaab badan iyo dhawaaqyo kala duwan. waana kan waxa ay kala Caralho, kulmeen. bicho, que é isso, mano? Cuidado, Judá. Cuidado, mano. Que é isso, mano? Mano, não tem nada. Caralho, mano. Que é isso, bicho? Caralho, mano. Mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. Bora, mano. É doido, Deus me livre, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. albaabku keligii ayaa si aad ah isu qaraacayay. dadka qaar ayaa yidhi waxaa looga dhigayay digniin oo loogu sheegay inay meesha baneeyaan ama ay iskaga tagaan. kadib markii ay in ka mid ka baxday, waxay arkeenba in lagu soo shiiday ama ashyaa ay agtooda kusoo ag dhacayso. william frank waxaa kala kulmay arrin aad u la yaab badan wiilkiisa kadib marka uu soo siixiyo oo kaga yimaado qolkiisa ilmaha yar. waxa uu maqlaa kadib ilmaha yar oo aad u ooyaya kadib markii uu seexday, sameynayana dhawaaqyo ama jabaqyo, taasoo u malaynayaba inaysan ka imanayn dhinaca ilmaha yar ee qolka lagula jiro. habeen dambe ayaa uu go'aansaday inuu kaamarad u dhex dhigo qolka, laakiin waxa uu ka arkay ayaa aad iyo aad u cabsi geliyey william frank. kadib markii uu daawaday, william aad ayaa uu uga naxay markii uu ku dhex arkay kaamarada shay aad u qariib ah. wax wejigiisu kasoo dhex muuqanayo meesha. jismigan aadka u qariibka ah ayaa uu aad uga naxay. william waxa uuna go'aansaday maalin dambe ama habeen dambe inuusan uga tegin qolkan ilmaha yar keligiis. gurigan dadka waxay ka qabaan shoog iyo cabsi aad u badan kadib sheekooyin badan oo iska daba yimid dad ku sheegay waxyaabo kala duwan oo aad iskaga siman yihiin wuxuba inay cabsi iyo naxadin iyo waxyaabo aad u la yaab badan inay kala kulmaan gurigan dhexdiisa. xataa dadka qaar oo yidhi marka aan ka ag dhowaano ayaa waxyaabo la yaab leh kala kulanaa. kadib waxay dad ka mid ah dadka ka ag dhow ay ku sameeyeen baadhis, waxayna dhex dhigeen kaamarad gurigan dhexdiisa. daqiiqado yar markii ay socotayba kaamaradu waxaa la maqlay codad iyo dhawaaqyo guriga dhexdiisa ah, qaarkoodna ayba u dhow yihiin kaamarada. inkastoo la duubay muuqaalkan 2008 laakiin ilaa hadda dadka waxa uu kusii beeray cabsi iyo shaki aad u badan. halkan waxaad ka arki kartaaba in gaadhi uu halkaasi ka dhaqaaqay leedhkiisa, laakiin shakigan aad ku badan maxaa ka sal ah.
ciyaalka qaar waxay arkaan waxaysan arkaynin dadka kale ee qeyrkooda ah. Muuqaalkan waxaa laga duubay Australia, aad ayaa uuna u cabsi geliyay waalidka ilmaha yar dhalay. wax la yaab leh ayaana kasoo muuqday. waxaa laga yaabaa in ilmaha yar ay wax soo hor istaageen, kaasoo ka cabsiiyey kuna sababay inuu meesha ka cararo aadna u ooyo.